oo aad soo ajiibtay codsigii iyo dalabkii laga codsaday inaad ka soo qayb gasho barnaamijka. waxay igu xigaysaa insha allah bal nabiga in lagu saliyo allahumma salli wa sallim wa barik calayh. aad u mahadsantihiin, waad ka fadhiisanaysiin marka. jazaakum allahu khayran. waxaan aan soo bilownay barnaamijka badan oo aan xalay joogin baa caawa jooga. si aan usoo koobo marka tacriifka aniga Axmed Jawhar baa la yidhahdaa, gacalisadaydan iyo cumar baa la yidhahdaa. marka waxaan nahay lamaane isqaba muddo 22 sano ka badan. markii aan xasaaweynayna 4 ilaa 5 sano naga qaadatay inaan dhalinyarada markii la ahaa. marka hadda sharcigu wuxuu noo sheegay made in China badan inay jirto meeshaan oo sanad iyo maaragtay mar aanan la dhaafin. marka wax badan oo Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir aan ka dhagaysanayna wuxuu sheegi jiray dadku in ay intay xasaawaha iyo maaragtay shaqaansiga 3 sano ay wadaan kabacdi markay fursadaanna 3 bilood ay wada joogi waayaan. tiyaa marka waxaan ku heshiinay aniga iyo hibo inaan bal isku dayno inaan wax ka bedeli karno, wax kusoo siyaadin karno inta adduunyada aan joogno. soomaalida waxay tiraahdaa waalidaysi warakaaho. marka aan noqonin iyagoo dhalinyaro amaadooda iyo kelmadooda cajiiba sheegay qof nool oo aan la tegin inta aan la tegin adduunyada haddaad ka tegayso waxaad kaga tagtaa rasma raad kaga tagaa. marka ilahay bismillahi rahmaani rahiim alxamdulilah sala allahu ala sayidina maxamed. ilahay baan ku mahadinaynaa walaalayaal kulligeen inaan isku soo noqono mar kale in kala faa'iidaysano insha allah. waxa weeyaan dadku amba xaalad bay ku jiraan amba maqaal bay ku jiraan oo action iyo qoraah bay dhahayaan amba xaalad dareen iyo feeling iyo emotion bay ku jiraan. labadaas bay u dhexeeyaan walaalayaal. marka sheekhi weynaha ee maaragtay cataailah iskandari wuxuu dhihi jiray hala saaxiibin laa taxsab bal laa yunbiduka xaaluhu walaa maaragtay yadulluka cala allah maqaalo. marka hala saaxiibin qof xaaladiisa markaad aragtay ay jeclaanaysa xaalad fiican ku jira amba aanan ku tusayn qoraalkiisa iyo hadalkiisa maaragtay ilaahay binayno ilaahay isdaraysiino. marka waxaan iskugu nidnay inaan ilaahay isdaraysiino inaan maaragtay ay xaaladaheena emotionkeena aan bedelo sidaan u fikirayna inaan bedelo maydin jayna inaynaan noqon. runtii intii yaray buu yidhi waxay ugu abuurtay wax aada weyn lianna markiiba maskaxdeeda waxaa kusoo xaadiray waxyaalaha productiga China ay soo saarto. ya China waxay soo saartaa badanka waxyaalo hore u xumaada, waxyaalo low maaragtay costi ah, waxyaalo fake ah, waxyaalo copy ah. waa waxaan dhaqanka oo dhan haddana xoog baan u isticmaalnaa, xoog baa loo isticmaalaa made in China. marka faa'iidadeynu inaan made in China aynu noqonin insha allah made in Soomaaliya aan noqon insha allah. ya Soomaaliya inaan noqono oo shay adag oo asal ah oo wuxuu soo saaro ayna copy ahayn ama fake ahayn ama maaragtay alqiisa ahayn wax quality loo noqon insha allah. saaxiibada anigu waan ka yara horeynayaa. waxaan leeyahay made in Islam. qoyskeena inuu noqdo made in Islam insha allah. kabtanka waa isku leeyahay runtii marka qaarkood inaan maaragtay qofka dhinac ka duwan maadaama kala duwan aniga dee nin baan ahay ayadna waa kaba soo marka kala duwanaashihii inaad naftigeeda lagu balaariyo. waxaan u mahadinayaa runtii alla ka sugo subxaana wa tacaala guddiga iyo maamulka masjid saxaaba oo aad dadaal xoog la geliyey in uu suuro galo maaragtay kulankeeda qiimaha badan kasoo galo jumcihii ilaa maanta. aad u mahadsantii jazaakum allahu khayran. sidoo kale Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir allaha nuuro xoog buu ugu dadaalay. dabcan lagu adkeeyey in aan kasoo talawno maxaan ku dhahday oceanka waa markii ugu horreysay aan maalmado